degmadani ceelkare oo ka mid ah degmooyinka gobolka Afdheer degmadani ayaa ah degmo ay dadkeedu xoolo dhaqato beeraley yihiin iyadoo ay beeraha waraabkeedana ay kaga faa'iideystaan biyaha ka soo dareera buuraha dushooda maadaama ay degmadani tahay degmo buuraley waxayna degmadu ay leedahay dhammaan adeegyada aasaasiga taasina waxa warbixin kooban naga siiyay gudoomiyaha degmada ceelkare mudane Xuseen Aadan dadka ku dhaqan noloshoodu waxay ku xiran tahay beeraley iyo xoolo dhaqato beeraley ay noloshoodu ku xiran tahay boqolkiiba 40 waxay dadkan ceelkare ku nool ay ku nool yihiin beer dhaqato beeraley boqolkiiba 30 waa xoolo dhaqato beeraley boqolkiiba 20 waa xoolo dhaqato oo kaliya boqolkiiba 6 waa dadka la yiraahdo ganacsatada boqolkiiba 4 waa dadka xoogsatada sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu noo sheegay in dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadku ay degmadu muddooyinkii u dambeeyay ay howlo muhiim ah ka qabatay qoysaskan model householdiga ama qoysaska tusaalaha boqolkiiba qorshahanaga markii uu riis wuxuu ahay 3,000 inay qalin jibiyaan sanadkan laakiin hadda 6 bilood labadii rubuc ee la soo dhaafay 1630 qalin jabisay haddana waxay u socotaa 930 ayay wax u socdaa waxbarashada bishan magaabita ee lagu jiro galaasyada fadhida imtixaanka term koowaad qaadatay haddana term labaad fadhiso waa 16983 arday 16983 arday wacyigelinta aan siin ilaa 350 arday ku soo koray oo كواد عصبة امتحان ترم كواد يسبق قادن هذي ربع لكن امتحان ترم كلابات حتى وعيقلين تتك أنسين ربعي بوحبة كسو كله وكسو درسمة مركا لانك سنة هوري أرديدي كسو جذبتي اسكولي اسو جذبتي لما كوني سدح دي كسو جذبتي لما كوني أفرتي هوري طبعا كون تضرب بقول لحدني سدح يعني tobanku 763 ay ahay inaga marka waxaan ku daran 6,120 ku daran degmadani ceelkare ayaa iyadu ah degmo dhinaca dibudajinta hal goob ah laga sameeyay sida uu noo cadeeyay gudoomiyuhu dhanka horumarka intaan meeshan mid isbedel fiican ka muujinay degmadu waxay leedahay webi hal webi amara webi webliiraan laba qabalo oo degmadana kamid oo mara labadaas qabale hal qabalo hoosaad iyo qabalo weyn waaye labadaas waxaan ku leenahay tafaas ama qoysaska dib loo dejinayo oo hadda loogu talagalay noloshooda inay si nolol degan ugu noolaadaan baadiyaha inta laga soo aruuriyo la isugu keeno dib dejin loo sameeyo 846 qoys ayaan dejino dhul u diyaarinay ilaa hadeertaan مطور إلى يسديتني لو مطوران نون قيبني تتكاس إن هذا نولش نول دقيقة في عين اسمياشين ويلستين أو جوابو كهبون يلا ديجي مدلل دودي براكوين يوحبي لستين وأنا دقيقة سي ماستر بلان يلو ديجي مركز هالكاس قبل لأن أنا قبل أصلا سديد بقول أفرتني اللي حكويسان إنه دقن سديد بقول أفرتني اللي حكترنا وديارنا ودياري degmadani ayaa waxa ay xuduud la leedahay degmooyinka Jarati iyo Galbeed iyo waliba degmooyinka ka tirsan gobolka Goday iyo degmo kale oo ka tirsan deegaanka Oromiya